Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaynu qaadanaynaa cashirkii afar iyo tobnaad ee saadiska. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay powers of sadis, jibaarada seedaha. Example-keena waa find the square of each of the following sadis. Soo hel square-rada ama jibaarada kuwani soo socda, saadan soo socda square-rada soo hel. Tusaaleena koowaad waa 2 radical 5. 2 radical 5 waxaa laga rabaa inaan soo helno jibaarkooda. Marka horeysa waxaan sameynaa bracket aan furaynaa 2 aan soo qaado lagu dhuftay radical 5 bracket ka xir, kadib square saar. waxay la mid tahay square-ka 2dana way leedahay, radical 5tana way leedahay. Marka waan u kala siinaynaa, waxaan dhahaynaa 2 square lagu dhuftay radical 5 square waxay la mid tahay laba mar isku dhufo waa 4 lagu dhuftay radical 5 laba mar isku dhufo waa radical 25 radical 25 waxay la mid tahay 4 soo qaado lagu dhuftay radical 25 radical ka bixi ama xididka ka bixi waa 5. ugu dambeyn 4 5 ku dhufo waa 20. jawaabta waxay noqotay 20. tusaaleena ku xiga waa 7 radical 3. waxay la mid tahay bracket aan furaynaa 7 soo qaado lagu dhuftay radical 3 square saar. waxay la mid tahay 7 square-ka keliya c lagu dhuftay radical 3na square-ka gooni oo dhig. waxay la mid tahay 7 laba mar isku dhufo waa 49. 7 laba mar isku dhufo waa 49 lagu dhuftay radical 3 laba mar isku dhufo waa radical 9. 49 soo qaado radical 9 xididka ka bixi waa 3. ugu dambeyn 49 3 ku dhufo waa 147. example-kana ku xigo waa 10 radical 8. waxay la mid tahay bracket fur 10 soo qaado lagu dhuftay radical 8 kadib square saar. waxay la mid tahay 10ka square-ka c lagu dhuftay radical 8 soo qaado iyadana square-ka c. waxay la mid tahay 10 laba mar isku dhufo waa 100 lagu dhuftay radical 8 laba mar isku dhufo waa radical 64. kadib 100 ka soo qaado radical 64 radical ka bixi waa 8. ugu dambeyn 108 ku dhufo waa 800. jawaabta waxay noqotay 800. tusaaleena waxay la mid tahay bracket fur saak soo qaado lagu dhuftay radical 7 kadib bracket ka xir square saar. waxay la mid tahay 9ka square-keeda gooni u sii lagu dhuftay radical 7 soo qaado ayadana gooni u sii square-ka. waxay la mid tahay 9 laba mar isku dhufo waa 81 lagu dhuftay 7 laba mar isku dhufo waa 49. 49 xidid ka bixi waa 7. ugu dambeyn 81 7 ku dhufo waa 500 konton waa 567. 567 ee jawaabta noqotay. tusaaleena ku xiga waa 6 radical 6. waxay la mid tahay bracket fur 6 soo qaado lagu dhuftay radical 6 kadib square saar. waxay la mid tahay 6da square-ka gooni u sii lagu dhuftay radical 6 soo qaado ayadana square-ka gooni u sii kadib 6 laba mar isku dhufo waa 36 lagu dhuftay radical 6 laba mar isku dhufo waa radical 36 radical ka bixi 6 ay noqoni 36 6 ku dhufo waxay noqonaysaa 216.
216 ay jawaabtu noqoto. Tusaalahana ku xiga waa radical 7 lagu dhuftay 2 radical 21. marka hore waxaan sameeynaa bracket furo, radical 7 soo qaado, lagu dhuftay 2 lagu dhuftay radical 11 dhammaantood square saar. waxay la mid tahay radical 7 square ka leedahay, 2 square ka leedahay, radical 22 square ka leedahay. mid kasta si gooni ah u siinayna. radical 7 soo qaado, jibaarka c lagu dhuftay 2 jibaarka c lagu dhuftay radical 11 na jibaarkeeda gooni u c. waxay la mid tahay radical 7 laba mar isku dhufo waa radical 49. 49 xid ka bixi waa 7 lagu dhuftay 2 laba mar isku dhufo waa 4 lagu dhuftay radical 21 xid ka saar waxay noqonay 21. waxay la mid tahay 7 lagu dhuftay 4 lagu dhuftay 21 marka isku dhufto waxay noqon jawaabta 308. jawaabta waxay noqotay 308. tusaalahana u dambeeya waa 2 radical 5 lagu dhuftay 3 radical 2. marka horeysa waxaan sameynaa bracket furo, 2 soo qaado, radical lagu dhuftay radical 5 lagu sii dhuftay 3 radical 2 dhammaantood jibaar saar 2 ah. waxay la mid tahay 2da square-kaas way leedahay gooni u sii, waxay noqonay 2 square lagu dhuftay radical 5 na gooni u sii xidka jibaarkeeda lagu dhuftay 3 na gooni u sii lagu dhuftay radical 2 na gooni u sii jibaarkeeda. kadib 2 mar isku dhufo waa 4 lagu dhuftay radical 5 2 mar isku dhufo waa 25. 25 xid ka saar waa 5 lagu sii dhuftay 3 2 mar isku dhufo waa 9 lagu dhuftay radical 2 2 mar isku dhufo waa radical 4 xid ka saar waa 2 4 lagu dhuftay 5 lagu dhuftay 9 lagu dhuftay 2 marka isku dhufto waxay noqonaysaa 360. jawaabtu waxay noqotay 360.